Aweys Ismaan Cabdi oo sagaalkii bishan aynu ku guda jirno ku dilay 5 ruux oo hal qoys ah 5 kalena ku dhaawacay deegaanka Garisbaalley ee duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana baxsaday markii uu falkan geystay ayaa laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo isla markaana hadda la keenay magaalada Muqdisho waxa uu xilligan ku jira gacanta ciidamada dambi baarista isagoo sugaya in loo gudbiyo hay'adaha garsoorka ee howshan shaqada ku leh afyeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Dhama Sadiiq Aadan Cali ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabka loo soo qabtay ninkan iyo sida ay ku keeneen halkan waxa uu sheegay in la horgeyn doono maxkamadda ciidamada qalabka sida si uu u maro sharciga hogaanka baarista dambiyada ciidanka booliiska Soomaaliyeed 17 July 2020 abaara 6 subaxnimo ayaa qaybta booliiska Galmudug ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay gacanta ku soo dhigeen eedeysane lagu magacaabo Aweys Ismaan Cabdi oo loo haysto inuu 8 bishii July 2020 uu dil wadareed ugu geystay tabeelaha Sheekh Ibrahim ee deegaanka Garisbaalley 5 ruux 5 kalena ku dhaawacay oo xididkiisa ahaa hogaanka baarista dambiyada ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo booliiska dawlad goboleedka Galmudug iskaashi iyo dabagal dheer oo ay sameeyeen kadib laguna raajoogay in muddo ah eedeysanaha ka baxsaday goobtii uu falka ku geystay ayay u suurto gashay in shalay gacanta lagu soo dhigo eedeysanaha fariin waxaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaynaa in dambiilihii haybtiisa la hayo oo fal dambiyeed gala uusan marnaba ku dhuumaalaysan karin geyiga qaranka taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed heegan buuxa ugu jiraan gacan ku dhigistiisa eedeysane Aweys Cabdullaahi Cabdi oo laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo shalay taariikhdu markay 17 bisha maanta ayaa dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho oo ahayd halkii uu falka dilka ah dil wadareedka ku geystay sidaad u jeedeen Aweys waxaan horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh si uu cadaaladda u dhadhamiyo waxaan u sheegaynaa cid kasta oo ku jirta ama qorsheynaysa inay fal dambiyeed geystaan in ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu diyaar u yahay gacantana lagu soo dhigi doono law cadaaladana la waafajin doono haduu Ilaahay yiraahdo aad ma santiin assalamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ma jirto Aweys kamid ma ahayn ciidamada qalabka sida laakiin burburka dalka uu ku jiro awgiis ayuu si fudud qori ku helay taas ayaa u saamaxday Aweys uu gacan ku dhiig la noqdo oo dad sida ku laayo ma rabo inaan horbooda cadaynta baaris baa socota baarista markay soo gabagabowdo yaan saan oo kale idin la wadaagi doonaa kiiska iyo technician sida uu ku dhacay oo dhan waa su'aal fiican ciidanka booliiska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo geyiga qaranka kamid ah waxa ka dhaxeeya iskaashi iyo xiriir wanaagsan oo nu ku wada shaqeyno waana iska gacan siinaa dambiilayaasha noocan oo kale ah taas kaliya ma ahan xitaa dibadda dalka hadii dambiiluhu oo dal ka dambi ku galo oo ka fakado dibadda tago ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan xubin ka nahay ciidanka booliiska caalamiga ah Interpol oo noo saamaxda inaan gacanta ku soo dhigno dambiilayaasha noocan oo kale ah sidaas oo kale waxa jira dawlado Soomaaliya ee heshiis la gashay extradition ah ama isu gudbinta maxaabiista sida uu dhigayo qodobka 10aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyadana saas oo kale waxaan awood u leenahay inaan soo qabsano laguna maxkamadeeyo lagu cadaalad mariyo dalka eheladii iyo qaraabadii dadkii uu soobsaday ninkan inay gacantiisa ku geeriyoodaan ayaa waxa ay ka dhowr sugayaan qaabka ay u wajihi doonto cadaaladda Safiya Ismaan Cabdulla Shabeelle TV